waxaan u gudbaynaa anagoo waqtiga ka faa'iidaysanayno qaybta noogu xigta oo runtii iyadana ah qayb aada muhiim u ah oo cadaaladda la doonayo inay gaarto waa qaybta qoyska. qaybtaasna waxaan kusoo dhaweynaynaa sheekhana الشيخ الفاضل الشيخ عبد القادر بوبي oo ah imaamka markaska Kamrock ya khatiibkiisa ahna ku-xigeenka رئيسك مؤسسة الإحسان لرعاية الاجتماعية. شيخنا كسودوينا فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى مهد له الله نوغو نعمي انتربضا وإن نسوكو بكرين عدالة فضل جيدا إي أهمية جيدا شيخ وكهد لي حفظه الله وحيكبلا متاقويسك أما أن نراهنو قويسسك روح مركو قف حشو ونولش أولو وداقو لقيب صدو وحاسو كرده وإلهي سبحانه وتعالى هبدي سيديق دي سكمدا أولاد كدبنا وحو أقود بائن وقويس الله بعد أوصميه قويسس كاترة بدن يا أولاد دودا أي شرائح ذا إيه قيبها بلشد أي ككوبنتها عدالة وشرد أساسي ولا قبل مارمان وآه ruuxu ama ninku haddii uu rabo hal dumara wax ka badan inuu wax la qaybsado nolosha la wadaago waxaa shardi lagama maarmaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qayd uu ku xidhay ah inuu cadaalad la yimaado. rabbigeen subxaanahu wa tacaala sida uu leeyahay fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i masna wa hulaatha wa rubaac. الله وحده فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الله وحده سبحانه وتعالى دمر كي قرسدا الله بقي يصدح يأفر قرسدا حدات سكب بغضان إن إذن عدالة سمينين وأيضا أقر سورين قلد يقعن بحل أيضا كسمين فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هل مدكو هذا يوحي مدقيدي إنه أي هنتين وعلى الشهودي إن تكو قدتو وحرير قول لي لتنا كوغو فلان شوري عدالة حما إن لقو قبصدنا وآخر قيامها لقو سوتاقنا واتك بحصت. إلهي وحده سبحانه وتعالى هل مد إن تكو إكاتو أما الضومدي قعنتي إنه أي هنتي ayaa u dhow inaydan joor iyo aydan samaynin buu Allah subhanahu wa ta'ala. cadaalad xumada ka iimaanaysa ragga ka iimaanaysa marka laga tago duwalkan qarbiga oo la dagaalama tacadudka iyo guurka badan. cadaalad xumada ragga ka iimaanaysa ayaa waxay sababtaa inay dumarku ogolaan waayaan raggooda in lala qaybsado. haddaynu marka eegno dhaqankii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi qowl iyo ficilba wuxuu nebigu uu ku caddeeyey dowrka iyo kaalinta ay cadaaladdu usrooyinka iyo qoysaska marka laga hadlayo muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay. bal haddii yacni basharka la eego nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi cadaaladda wuxuu ka joogay dowrka ugu sarreeya. حديثتي قولي هذين وحكسوا قاضنه إمام أحمد أبو داود الترمذي النسائي وحيورني عن حديث صحيحة من حديث أبي هريرة والنبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه من كانت له امرأتان فمال إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. روحي لبد مر النولش اللو ذاقو وحلق يبصدا isla markaana midood u iisha
oo gacantiisa iyo ixsaankiisa iyo samafalkiisa uu u bato maalinka qiyaame wuxuu yimaadaa isagoo dhinaciisa oo laadlaado maxkamadda caadilka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garsooraha ka yahay waxaa la keenayaa khalqigana loo muujinayaa natiijadii camalkiisii foosha xumaa ka dhalatay isagoo dhinaca laadlaadaa la keenaya lianna aljazaau min jinsi alcamal xadiiskan marka haddaynu ku dul istaagno dad badan oo mas-uuliyaddaa qaaday oo xaasas badan nolosha la qaybsaday in badan waa inay ka fekeraan waciidka uu nebigu tilmaamay oo waxa aada bixinayseen nafaqo ah iyo maskanka iyo meesha aada dejinayso iyo malbaska iyo libaaska iyo dharka aada u xidhayso masruufka iyo mariinka iyo marashada inay u sinaadaan dumarkaagii ay u sinaadaan waa mas-uuliyad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku saaray waa shay waajiba oo lagaa doonayo ilaahay agtiisana subxaanahu wa tacaala lagugu weydiinayo maaha midna inaad ay boorso kuu noqoto midna inay noqoto ka nasyan mansiya wax la ilaaway ay noqoto afcaasha nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiista ficliga nebigeenu ku tilmaamay curwa ibnu subayr baa caaisha waxay ku tiri yabna ukhtii kaana rasuulu llaahi sal allau alayh wasalam laa yufadilu bacdana calaa bacdin fi lqasmi habar yar nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qeyb annaga naga mida qeybta kale kamaanu fadili jirin sagaalkii dumar ee u lahaa min mugsihi cindanaa nagaadiga uu agtayada ku nagaanayo ama habeenbariga uu habeenkii uu nala baryayo hooyashada uu nala hooyanayo maanu fadili jirin midkayo midda kale kamaanu fadili jirin wakaana qalla yowmun ilaa wahuwa yaduufu calayna fayadnuwa min kulli imra'atin min gayri masiis waxaa yarayd waqtiyada ka mid a inay nebiga soo marto ilaa wuuna soo mari jiro reerahoo dhan buu ku soo wareegi jiray haween kastana wuu u dhowaan jiray wixii mucaasharo ah laakiin xiriir gogoleed lama samayn jirin xataa yabluqa ila alatii huwa yowmuhaa fayabiita cindaha ilaa tii habeenkaa lahayd habeenkeedii la gaadho oo agteeda uu ku baryo waa ficil nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ummaddii fariinta iyo risaalada uu gaadhsiinayey oo ugu bayaaminayo ugu caddaynayo qaab nololeedka ay qoysaskooda iyo reerahooda ula noolaanayaan iyo qorshaha iyo qaabka ay ugu cadaalad samaynayaan cadaaladda nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddaynu eegno shay yaroo daari oo nebiga kusoo darriyey oo safar ah safar markuu gelayo dumarkiisa cidda raacaysa waa u qori tuuri jiray kaana rasuulu llahi sal alla alayh wasalam idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ih fa ayatuhunna kharaja sahmuhaa kharaja biha maca tii marka qorigeedii uu u soo baxo oo ku guulaysato qorituurkii ku guulaysata buu nebigu la bixi jiray salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ma jirin adiga hadda waxaad suuraysan lahayd sheekh midani caruur badan bay wadataa ama midaanaan shahrulcasalkii ku wada jirnayo maxaa la odhan jiray hanimoni baanu ku wada jirnaa oo yacni iyadaanu isku dambaynay marka iyadaa ka fudutana aan kaxaysto caaisha waxay leedahay wakaana yaqsimu likulli imra'atin minhunna yowmaha walaylataha gayra ana sawdata binti zamca wahabat yowmaha licaaisha dumarkiisa mid walba habeenkeeda iyo maalinteeda ayuu siin jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaan sawdo ka ahayn iyadu habeenkeedii caaishay u hibaysay ilaa waa xaq ay leedahay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marxaladii uu jiraday ee xaaladii xanuunka uu ku jiray fiiri cadaaladda usrooyinka iyo qoysaska marka laga hadlayo heerka ay gaadhsiisan tahay
xaaladii xanuunka uu ku jiray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa la qaadayo marba guri baa la geynayay. caaisha waxay leedahay xadiiska bukhaari fii saxiixi uu ku warinayo in kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam layatacadaru fii maradih, rasuulka ilaahi wuxuu ahaa kii cudurdaal dalba yacni wakhtigii maradkiisa iyo jiradiisa. wuxuu odhanaya ayna ana alyowm, ayna ana hadan, istibdaa'an liyowmi caaisha. maanta xaggaan joogaa ma garanayo meeshuu joogo, berrito xaggee baan ahaanayaa. wuxuu daahsanayay maalinkii caaisha. haddana cadaaladda iyo garsoorka iyo insaafka nebigu meesha uu gaadhsiisan yahay, caaishaan jeclahay ee ha laydaayo ma odhan. ayib ilaa yacni nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ay suuroobi weyday, yacni inuu wareego ay suuroobi weyday. caaisha waxay yacni ku faani jirtay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ku dhintay oo lagu oofsaday inta dhuuntayda iyo kalxantayda u dhaxaysa, gurigaygaana lagu aasa. nebigu wuxuu u cidiray, dumarkiibuu u cidiray, bacasa ila nisaa'i tacnii fii maradih faijtamacna faqaala inii laa astadiicu an aduura baynakuna fain ra'aytuna an ta'dana lii faakuna cinda caaisha facaltuna faadina lahu. wuxuu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ma awoodi karo inaan dhexdiinna aan ku wareego oo idiin habeen qaybiyo. habeen qaybta xikmadda loo samaynayana waa wixii xiriir gogoleed ku saabsanaa. nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marxaladii ugu dambeysay buu maraya. wuxuu leeyahay haddaad u aragtaan oo ay idinla noqoto oo tala ahaan ay idiin muuqato inaad ii idantaan inaan caaisho agteeda laygu baxnaaniyo, waad samaynaysaan. kadibna way u oggolaadeen nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh. xadiistaas kooban markaynu fiirino, nebiga wuxuu ka turjumayaa heerka nebigu uu ka gaadhsiisnaa cadaaladda qoysaska in loo cadaalad sameeyo. waayo soomaaliyeed baa waxay tidhi odaygayga waxaa iigu dambeysay maalintii wiilka dhowr iyo 20 jirka aan dhalay baa iigu dambeysay. maalintaasuu guursaday, kadibna islaantii hore waa ilqeeyey. waa dulmi, waa xadgudub. cadaalad maaha ixsaankaaga iyo samafalkaaga iyo gacantaada iyo la joogidaada iyo baryidaada inaad dhinac u badato. hogasha marka ay reer baadiyuhu tilmaamayaan waxay dhahaan roobkaasi waa barbaruda. barbaruda inaad noqoto cadaalad maaha. cadaalad maaha mid inaad yurub yacni aada la joogto midna africa aada ku ilowdo. cadaalad maaha mid nairobi inaad qabowga yacni aada hoosta ka gasho oo la joogto, midna xeryaha aada ku ilowdo. nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu gaadhsiiyey ruuxii 2 dumara leh oo aanu cadaalad samaynin maalinka qiyaame wuxuu yimaadaa isagoo dhinaciisa uu laadlaado. waa ijmaac culimmadu ay ku kulmeen. ibnu qudaama ayaa soo naqliyey, wuxuu leeyahay laa naclamu bayna ahli اlcilmi fi wujuubi taswiyati bayna asawjaati fi lqasmi khilaafan. ahlucilmiga dhexdooda kuma ogi inay isku khilaafeen dumarka in loo garsooro loo cadaalad sameeyo habeen qaybta marka loo habeen qaybinayo. maxaa laga cadaalad samayn karaa? waxaa laga cadaalad samayn karaa wixii afcaale ee muuqda, sida maskankii, sida mabiidkii gurigii, hooyashadii, masruufkii iyo nafaqadii, aradbeelkii iyo labiskii iyo dharka wixii ku saabsanaa, waa afcaashaa muuqata. waxaan laga cadaalad samayn karin baa jiro, waa qalbiga wixii ka dhalanayay oo jacaylka ah.
إلهي وحوله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق مع عدالة سمين كرتان آد بدداشين وحان لقى عدالة سمين كرين وقلبك إلهي ومعموله لكن الله وحوله سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل هل يحننا leexasho dhammaanteed ha iilanina baa alla yidhi subxaana wa tacaala macnaha wixii adiga ilaahay subxaana wa tacaala uu gacanta kuu geliyey inaad dhinac u badato oo dhinacaad ka rarto gaadhigii dhinacaad ka rarto yacni ha noqonin qalbiga wixii yacni ka soo baxa oo natiijo ah jacaylka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qalbiga geliyey laakiin natiijada ka dhalatay baa la rabaa inay cadaalad ay noqoto qof waad jeclaan kartaa waxaa dhici karta meel in budh laga haysto waxaa dhici karta meel dagaal in lagaga jiro meelna laga soo dhoweeyo qofkii dabeecadda basharkuna waxay u nugushahay ixsaanka iyo samafalka cidda u gasha ilmahaaga haddaad dhirbaaxdo oo mar walba aada gujayso maalinta dambe iska kaa celinaya ka ugu yarba ha ahaadee marka waa in maxabada qalbiga waxaa ka dhalanayaa wixii afcaal ah waa inaanay yacni markaa cadaaladii aanay ka tegin ee cadaalad ay ku salaysnaadaan haddaynu intaa kaga gudubno qoysaska oo cadaaladda awlaadda u gudubno taymka oo aada u yar nabigeennu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh icdiluu bayna awlaadikum icdiluu bayna awlaadikum icdiluu bayna awlaadikum xadiiska abu daawuud iyo nasaa-i iyo keyrkood ay warinayaan caruurtiinna u cadaalad sameeya caruurtiinna u cadaalad sameeya caruurtiinna u cadaalad sameeya waa qeyb qoysaskii iyo usradii ka mida waana faracoodii waana qeybtii ugu muhiimsanayd waxaa dhici karta ninku haweenayda inuu furo markuu furona ilmaheedii uu dayaco waxay yidhahdaan soomaalidu qori iyo qiiqiisba waa laysla tuuraa war haweenaydanaad kala tagteene carruurta miyaa la furay maya waxaa dhici karta cadaalad xumada caruurtu inay ka timaado xagga yacni cadiyada iyo hibada mid ka mida inaad wax siiso wax gaara aada ku khasiisto soomaaliya gaar ahaan haddaynu misaal soo qaadanno ilmaha ugu yar baa gar iyo gardarraba wax la siiya ilmaha ugu yar lama baro qofkan kaa weyn waxaa u dah gabadhu wax ku qabsan naasiya wiilka ka weyn buu wax ku qabsan ha la siiyo asagaa wax loo keeni asagaa la koolkoolin ama wiilka gabdho badan la dhashay gabdhuhunbuu isaguna dulmi ku hayaa ha wiilka u daaya unbaa la leeyahay waxaa loo cadaalad sameynaya ilmaha waa cadiyadii iyo wixii la siinayey waa tarbiyadoodii iyo waxbarashadoodii waa korintoodii iyo barbaarintoodii intaba in looga cadaalad sameeyo ayaa loo baahan yahay ittaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum kamaa tuxibuuna an yabaruukum ilaahay ka boqo carruurtiina u cadaalad sameeya sidaad u jeceshihiin baarinimadooda iyo samafalkoodu inay idiin midaysnaado oo mid idiin noqdo waxaan ku soo khatimayaa mowduucayga cadaaladda ilmaha wuxuu gaadhsiiyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu gaadhsiiyey wiil iyo gabadh baa u yimi nin majaalistii nebi maxamed fadhiya golayaashii uu ummadda samaha iyo khayrka uu ku farayay markaasuu wiilkii markuu u yimi buu dhunkaday dhabtiisana waa ku fadhiisiiyey
gabadhii markay u timina intuu gacanta qabtay buu dhinaciisa istaajiyey soo arrin iska dabiici oo inagu dhacdo ma wiilal jacaylku waa iskaga abuuran yahay dadka guriga markaad garaacdo gabadhana saanaad isaga fogeynaa wiilkana shafkaad ku qaadaysa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alaa cadalta baynahumaa maad u cadaalad samaysid waxaa la leeyahay maad u cadaalad samaysid waa dhunkashadii iyo dhabtii lagu wada fadhiisinayay awlaadda marka waxaa loo baahan yahay in loo cadaalad sameeyo aabbayaasha qaarkood marka ay dhimanayaan baa laga yaabaa qof gaara inay si gaara wax ugu dardaarmaan hebel baan siiyey bahebla iskale in markaa awlaaddii iyo carruurtii loo cadaalad sameeyo ayaa la doonayaa waa meesha cadaaladdu ka bilaabmato qoysku hadduu cadaalad helo isla markaana qoysaskii oo dhani ay cadaalad helaan bulshadii yacni markaa inay cadaaladdii u gudubtaa la gaadhayaa xaakimkii iyo dadkuu xukumayay cadaaladdoodiina sheikha ayaa ka hadli doona wajazaakum allahu khayran